iyadoo lagu wado in dhowaan dalka ay ka dhacaan doorashooyin ayaa magaalada Muqdisho waxaa lagu arkayaa isbeddello badan oo ay ku jiraan hadalhaynta dadka oo noqotay arrimaha doorashooyinka. siyaasiyiinta xukunka u tartamaysa waxa ay taageero ka raadinayaan cid kasta iyo meel kasta oo ay ka heli karaan, waxaana badankooda lagu arkaa meelo aan hore loogu arki jirin iyo dad ay yarayd in ay xiriir la sameeyaan, waxaana meelaha ku jira xeryaha barakacayaasha oo booqashooyin ay ku sameynayaan. haddaba booqashooyinkaasi xilligani ma yihiin kuwo ku habboon? maxayse musharaxiintu ka filayaan in booqashooyinka xeryaha uga soo dhex baxaan? barakacayaasha qaar xilligan waxa ay ka fishaan fursado maalin ku mood ah oo musharaxiinta ama siyaasiyiinta maalintaas soo booqata ay ka helaan xoogaa raashiina ama lacag ah oo ay u keenaan, waxa ayna ka dhageystaan musharaxiinta ballanqaadyo laga yaabo in aanay fulin oo ah in ay wax u qaban doonaan marka ay ku guulaystaan jagada madaxtinimada sida dhacda mararka qaarkood. qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool xeryaha barakaca waxa ay rumaysan yihiin in booqashooyinka ay yihiin owrkacsi, iyagoona sheegay in ay siyaasiyiinta ay ka rabaan oo keliya dacaayad ama in ay isku xayeysiiyaan. waxaan jecelahay inaan ka hadla dhibaatada markaas anaga na haysato, taasoo ah mar waliba wana loo imaado musharax waliba maanta marka uu rabo in dawlad uu noqdo ama uu guuleysto wuxuu imaado anagu nuskan sawiraa wuxuuna yiraahdaa wax waliba adduunida aad ka rabtaan nolosha aa istaama nolol ka sareysa idin geynaya, haddana nama geey wax ka aan ka aragna maal marka uu asiga wax noqdo marka uu yiraahdaa hayo kuwii ma iska damaanta abaartu inuu baahan yahay aankan uu naca, taasna waxay ku dhacday dadkeena shacabka nama jecla. dawlad waliba waxay jeceshahay nin cadiiman inay wax siiso. ninka maanta shaati nuuraya anfacay laakiin maanta dhibaatada waxa anfacay aniga madaxayga inuu wax ku qaato ilaan dhibaatadeeda maanta qofkii arkay oo wax ku bixin kara ama wax lagu noqon kara, laakiin ma dhacdo si aan anaga aan jecel lahay. laakiin arintaas waxaan aga dacwoonaynaa rabbiga subxaana qaadirka ahay sharaxeynta uu ku sheegay nimankan buuga wada qortay meel ka saq qortay oo badara idin siiyayna sokora idin siiyayna yiri oo wada qortay hataa noo masamirti oo noo lagu masabir degmadaas noo lagu warsatay oo noo lagu sabirtay hada talo kuma hayno wixii oo uu nool siyaa hataa afgambi ku dhacay moordan oo ku jirno waana la sabirnaa, laakiin hashan meeshii ku soo ranta ama ku dhaleeysi min hoodale uu dhaleeysa ama agtayna kuma dhaleeyso. dad badan oo noo yimaado markasta ma sawiraan oo cod qaata waa jirtaa waxayna la siiyeen ma jirto dad la iska ganoona iyo sila iyo biyo aroor iyo waxaan ku dhaqoob marna leelaa marna la waynaayo xamaali marna leelaa marna la wayna sila aasaasno ilaahay oo arsaqa ma uma wax kale lagu hayo male. أنت صباحا صباحا أي تاتا وح الماء وقرية وساني يقولون عيالك الساجد توي وحنا الصين ما أركب نقول بواسكي ما أنا عدسنا القادة وحواس دوبنا بس كتجا أنا وح إن لقطنا وحول بوبان وحول بيننا لقطنا وباعنا وحنا الصين ما أركب وحوا بلا هذا وحنا الصين ما أركب محليين مثلا حول بوحين بانتي وأنا الخمنا لو عط وقعتنا في واحد وعدين أركنا أركنا مجد hadda noloshiina waa sidee? hadda noloshaana nolol iska waxaysan adigu dib waa iska jirnaa dib dhaamna ilaahay waa alaano dhaam kar waa iska dhiban kulli wax aan haysana male. maxaa xasan lahayd? xasanina wax walba wixii ay noo qabtaan iska codsanayna meel alaala meeshii waxay nasiina ilaahay waa si kara waa iska rabnaa. dhibaatada barakaca muujinteeda waxay muhiim u tahay nolosha dadka, waxaana ay noqon kartaa in indhaha caalamka lagu soo jeediyo, taas oo muddo haba koobnaatee wax tari karta dadka oo muddadii 40 sano ahayd ee la soo dhaafay aan hoos loo eegin dhibaatadooda. cali maxamed nuux timijilic oo ah gudoomiye ku-xigeenka midnimada jamhuuriga oo ah nin falanqeeya siyaasadda oo ku nool Muqdisho waxa uu qabaa in booqashooyinka noocan aanay ahayn wax badan oo u soo kordhin kara musharaxiinta doorashadooda, balse ay tahay oo kaliya mid muujinaysa damacooda in ay qaab kasta oo ay ku raadinayaan si ay mar u noqdaan madaxda dalka. maanta waxaan jeclahay inaan ka hadlo wadanka waad ogtihiin doorasho ka jirta, waxaa jira musharaxiin fara badan oo campaign ku jira oo lacaga fara badan geliyay boorarkoodii iyo sidii yani maaragtay ay uga muuqan lahaayeen bulshada, iyagoo aan anigu isleeyahay nasiib darro weyn waxaa ah in musharaxiintu ay dadka barakacayaasha ah maanta Muqdisho ku sugan
oo aad og tihiin xaaladda ay ku sugan yihiin inta loo tago oo la isku sawiro oo ballanqaadiyo yacni maaragtay afka ah la sheego oo yacni maaragtay magacoodii la qaato in meesha looga dhaqaaqo arrintaas cuquubaa ka dhalanaysa waxaan leeyahay musharaxiintu maanta lacagaha ay gelinayaan yacni maaragtay ama sawiradooda ama propagando iyagu yacni maaragtay ay samaysanayaan waxaa ku habboon oo ku wanaagsan inay dadkaas gacan u fidiyaan. Ibraahim Maxamed Xuseen, Ibraahim JK, STN, Muqdisho.